السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qisadeena maanta waa mid naxdin leh oo ruuxday dalka Masar iyo guud ahaan dunida Carabta sanadka markuu ahaa 2022. Haddaba sidee ku dhacday in nin garsoore ah oo shaqadiisu ahayd inuu ilaaliyo cadaaladda uu isku bedelo gacan ku dhigle qorsheeyay dilka xaaskiisa. Tani waa qisadii Shayma Jamaal. Shayma waxay ahayd weriye caan ah oo ka shaqeysa telefishinada Masar, gaar ahaan waxay soo daadihin jirtay barnaamijyada ka faallooda dambiyada iyo arrimaha bulshada. Waxayna ahayd weriye geesi ah oo codkar ah. Ayman Xajaaj asna wuxuu ahaa garsoore sare oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalka Masar. Wuxuuna ahaa nin magac iyo sumcad weyn ku dhex leh dowladda iyo bulshada dhexdeeda. Shayma iyo garsoore Ayman waxay isku guursadeen si qarsoodi ah. Garsooraha wuxuu lahaa qoys kale iyo caruur. Wuxuuna aad uga cabsanayay in guurkan cusub uu saameeyo booska uu ka joogo maxkamadda iyo sumcadiisa qoyskaba. Muddo kadib, Shayma iyo Ayman waxaa dhex maray khilaaf xooggan. Shayma Jamaalna waxay ku adkaysatay in guurkeeda la ogeysiiyo bulshada iyo qoyskiisa rasmiga ah. Waxayna ku hanjabtay haddii uu diido inay iyadu banaanka soo dhigi doonto sirtooda oo dhan. Hanjabaadan waxay noqotay barta isbedelka sheekada, maadaama garsooruhu uu dareemay in mustaqbalkiisa iyo shaqadiisaba ay halis ku jiraan. Garsoore Ayman wuxuu go'aansaday inuu meesha ka saaro Shayma si uu sirtiisa u qariyo. Si qorshahan u fuliyana wuxuu caawinaad ka dalbaday nin saaxiibo ahaayeen. Ayman wuxuu kireystay beer yar oo ku taala aaga Qiza si uu halkaas dembigiisa ugu fuliyo. Kadibna wuxuu Shayma ku kaxeeyay gaarigiisa, isagoo u sheegay inay u socdaan beer uu rabo inuu u iibiyo amaba hadiyad ahaan uu u siiyo iyada. Markii ay beertii tageen, waxaa dhex maray khilaaf. Kadibna garsooraha ayaa ku dhuftay qoriga dhabarkiisa si ay miirka u weydo amaba u suuxdo. Kadibna wuxuu u adeegsaday maro si uu u neef qabatameeyo ilaa ay naftu kaga baxdo. Isaga iyo saaxiibkiis waxay god ka qodeen beerta dhexdeeda, waxayna ku tuureen midkii Shayma, iyagoo ku shubay kiimiko si wajigeeda iyo jirkeedaba loo aqoonsan. Kadibna carro ayay ku rogeen. Si uu isaga fogeeyo tuhunka, garsoore Ayman wuxuu aaday saldhigga booliiska, wuxuuna u sheegay in ay u qoraan dacwad ah inuu xaaskiisu la'yahay. Hase yeeshee, qorshihii si fudud ayuu u burburay. Saaxiibkii dembiga ka caabiyay ayaa dareemay cabsi weyn iyo culays nafsi ah. Ninkan saaxiibka ah ayaa isku dhiibay booliiska, wuxuuna sheegay qisada oo dhameystiran. Sidoo kale wuxuu geeyay beertii isagoo tusay meesha rasmiga ah ee midka lagu aasay. Booliiskii ayaa helay midkii Shayma, waxaana si degdeg ah looga qaaday xasaanadii garsoorihii Ayman Xajaaj, waana la xiray isaga iyo saaxiibkii ka caabiyay dilka Shayma. Kiiskan wuxuu noqday kii ugu weynaa ee xilligaas ka dhaca Masar, dadweynahana aad ayay ugu caroodeen falkan. Sanadkii 2022 bishiisii Sebtembar, maxkamaddu waxay xukun daldalaad ah ku riday garsoore Ayman Xajaaj iyo saaxiibkiisa. Qofkii qof dila xukunkiisa waa dil, balse ninka caabiyay haddana kiiskan banaanka keenay xukunkiisa ma mudnaa bay kula tahay dhageysti ama daawade.